munaasabadan xil wareejinta wasiir ku-xigeenadii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa cusub waxaa kaloo ka soo qayb galay taliyayaasha ciidamada badda laanta socdaalka barasaabo maayaro agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaano madax dhaqameed aqoon-yahan waxgarad iyo mas-uuliyiinta waaxaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha cabdisamed cumar maal ayaa ugu horeyn hadal ka jeediyey munaasabadaasi isagoo si faahfaahsan uga waramay baaxadda shaqo ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo kaalinta dhabarta ah ee ay qaranka kaga jirto sidoo oo kale wasiir ku-xigeenadii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane cali maxamed cilmi iyo cismaan garaad soofe ayaa iyaguna munaasabadaasi hadal ka jeediyey kuwaasiyo ka waramay hawsha shaqo ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo sida xilkasnimada xilgudashada iyo wadajirka ku salaysan ee ay usoo wada shaqeeyeen shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha geesta kale wasiir ku-xigeenada cusub ee maamulka gobolada iyo degmooyinka axmed faarax cadare iyo wasiir ku-xigeen cusub ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha cabdi daahir camuud oo hadallo kooban ka jeediyey munaasabadaasi ayaa ka waramay culayska shaqo ee wasaaradda arrimaha gudaha iyaga oo ka codsaday mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha gudaha inuu ilaahay uga baryaan inuu ku asturo xilka culus ee loo dhiibay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cali maxamed waran cadde oo hadal dhinacyo badan taabanaya ka jeediyey munaasabadaasi ayaa ka waramay baaxadda shaqo ee wasaaradda arrimaha gudaha isaga oo sidoo kalena u mahadnaqay wasiir ku-xigeenadii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha isla markaana soo dhaweeyey kuwa cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradani way ka duwan tahay wasaaradaha kale mushkiladda ay leedahay waxaa ka mid ah wasaaradaha kale saacado gaara bay shaqeeyaan 8 saacadood iyo wasiiradooduba 24 saacadoodba waa duty madaxdeedu sababtu waxa weeye xididadeedu waxay ku xidhan yihiin gobol wal nabad iyo dhibaataba way ku xidhan yihiin marka xanuun kasta oo soo gaadha gobolada goor kasta uu soo gaadho in laga jawaabo wasaaraddu ka jawaabto ayay u taagan tahay laakiin tan waa mid u baahan mar walba in xididkaasu nabadgelyadu uu shaqeeyo munaasabadaasi iyaguna waxaa hadallo kala duwan ka jeediyey maayarka caasimadda hargeysa barasaabka gobolka maroodi jeex kuwaasi oo ku kala hadlayay afka barasaabada iyo maayarada dalka waxaana gabagabadii munaasabadaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cali maxamed waran cadde uu shahaadooyin guddoonsiiyey wasiir ku-xigeenadii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha